السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كسو دوادا عشرة امتحانها هاي برشادة لغة بايثون ee aad kala socoteen channelka CR Warsame. Waxa casharkeena maanta ku qaadan doonaa haddii la yiraahdo relational operators, calaamadaha isbarbardhigga iyo comparisonka iyo xiriir ka dhaxeeya laba variable inay kala weyn yihiin isla eg yihiin iyo wixii la midka ah. Calaamadahan waxa ay noo suurtageliyaan inaan dhisi karno conditions. Waxaan soo aragnay if condition statements iyo wixii la midka marka conditionskaas in la dhiso calaamadahan ayaa noo fududeeyo waa 6 calaamadood halkan ayaa in kugu soo qoray waxa uu ku leeyahay calaamada koobaad ma ka weyn tahay haddii aan sidaan oo kale aan dhaho x ma ka weyn tahay y is x greater than y waxay noqon kartaa sidaan hore u soo sheegnay ha ama maya way ka weyn tahay ama kama weyno x ma ka weyn tahay ama la eg tahay y x ma ka weyn tahay ama la eg tahay y x ma ka yar tahay y x ma ka yar tahay ama la eg tahay y x ma la eg tahay la ekaanshaha marka waxaan isticmaalnaa programmingka luqadaha qaar badan ee kamid ah waxay isticmaalaan sidaan oo kale equal laba equal ay isticmaalaan waxa tan sabab u ah qayb ahaan haddii aad xasuutaan waxaan hore u soo aragnay haddii aan dhaho x equals 5 macnaheedu waxay noqonaysaa x 5 ma la eg tahay ma aan soo mahayn x waxaa ku shubtaa value 5 ayay ahayd oo assignment operator ayaa la dhahaa equasha kaligeed hore ayaan u soo aragnay halkan korna way noogu qoran tahay x equals 10 10 x igu shub 8 y igu shub marka equal marka rabno isla ekaansho marka rabno waxa u isticmaalnaa equal if x equals y sidaan sameey ayaan dhihi lahaa marka is x equal to y x ma la eg tahay y waa jawaabtu laga rabaa halkan yes or no tan ugu dambayso equal markay equal la ekaatay halkaana not equal to ayaa la dhahaa lama eka miya is x not equal to y xy lama eko miya way la eg tahay ama lama eko ayaa dabcan jawaabtu noqon lahayd sida aad dareemaysid waxaan inaan tijaabino programkan x waxaan geliyay 10 y-na waxaan gelinay 8 waxaan rabaa halkan waxaa soo daabacnaa dabcan printing aan ku wada isticmaalaa si aan ku tuso yes or no waxa dhacayo dabcan waa true iyo false waxaan dhahay waxaan daabacdaa is x greater than y x ma ka weyn tahay y 10 ma ka weyn tahay 8 jawaabtu maxay noqonaysaa halkan yes true uu dhihi doonaa halkan muxuu ku leeyahay 10 ma ka weyn tahay ama la eg tahay y marka ma ka weyn tahay ama la eg tahay labadooda mid haddii la helo haddii ka weyn tahana waa yes haddii la eg tahana waa yes haddii labadaba aan la helin oo ay ka yar tahana maya ayuu dhihi doonaa ma ka weyn tahay ama la eg tahay haa way ka weyn tahay yes uu dhihi doonaa again true way ka labaad x ma ka yar tahay y maya 10 ma ka yar tahay 8 maya 10 ma ka yar tahay ama la eg tahay 8 haddana maya 10 ma la eg tahay 8 maya 10 lama eko miya 8 10 lama eko 8 miya umalaya su'aashu noqonaysaa is x not equal to y x lama eka miya y lama eko ay jawaabtu noqonaysaa dabcan haddii aan rabo programkan inaan rangareeyo waxaan sameynayaa ran ayaan leeyahay si aan u arko wuxuu isu saaya dabcan true iyo false iyo badan si aan u aragno halkaanaan tegayaa waxaan rabaa inaan isoo garab dhigto codeka iyo outputka halkaanaan imaanayaa waxaan dooranayaa view mode kabacdi waxaan ka dooranayaa float ayaan leeyahay waxaan rabaa floating inay soo ag istaagto halkan waxaan rabaa marka inaan isku barbardhigo oon ku tuso waxa dhacaya halkan waxaan dhahay waxaa soo daabacdaa 8 ma ka weyn tahay 10 ma ka weyn tahay 8 jawaabta koowaad waa maxay haa 8 ma ka weyn tahay ama la eg tahay 10 ma ka weyn tahay ama la eg tahay 8 again haa 10 ma ka yar tahay 8 maya dabcan 10 ma ka yar tahay ama la eg tahay 8 maya 10 ma la eg tahay 8 maya 10 lama eko miya 8 yes ayuu ku leeyahay sida kuu muuqanayso marka haddii aan badishno waa sidoo kale dabcan haddii aan halkan ka dhigo tusaale ahaan 10 aan ka dhigo 10 haddii aan ka dhigo maxaa dhacayo 10 ma ka weyn tahay 10 maya false aan halkan la soo mayn kan labaad muxuu noqonayaa ma ka weyn tahay ama la eg tahay yes way la eg tahay true kan xiga muxuu noqonayaa ma ka yar tahay maya ma ka yar tahay ama la eg tahay yes ma la eg tahay yes lama eka miya no sidaas oo kale ayuu noqonayaa haddii aan dhaho run ama execute wuxuu leeyahay tan koowaad waa false kama weyno tan labaad waa true way la eg tahay tan xigto waa false kama yaro tan kale waa true way la eg tahay tan kale true way la eg tahay again tan kalena lama eko miya waa la eg tahay dabcan ayadana false ayuu ku leeyahay marka bedel nambarada bedel tijaabi kan hore weyne kan dambe yaree isla ekaysi kala bedel iyo wixii la midka dhammaantoodna waxa ku soo baxayo
ayaad sidaas oo kale arki doontaa waxaan rabay inaan ku tuso sida la isugu barbardhigay iyo wixii la midka ah sidaas ayuu sharaxaada casharkeena uu noqonayaa calaamadaha marka waxay naga caawinayaan sidaan arki doono waxaan ku isticmaali doonaa selectionska inta noo dhiman oo dhan ay noo suurtagelin doonaan aad ayaana loo isticmaalaa programmingka si guud selections iyo relational operatorska iyo isticmaalkooda very useful waaye marka wuxuu kugu noqon karaa node kooban oo meel aad ku save garaysato oo markii aad rabto aad u laabato casharkeen intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa hadduu alla waa ku mahadsantihiin waqtigiina wassalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته